الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى ولا ليال ما أنت إن شاء الله تعالى وحين بلابنا فائدوين كيني إنه كسر جرني موضوعي عشر كإنه كسر جرني وحوها سيدا نفط عيبه هذا لو قرته حدو تنلوها كاتشيو ومهمة مركورة نفط هذا عيبته لا هاي قرو حدو تنا هاجاتشي qofkuna waxa la doonayaa hagaajinta iyo nafta ilaalinteeda inuu ka dhigto dhinaca diinta insha Allah ta'ala inuu qofku markuu is hagaajinayo oo markiisa uu qalbigiisa daahiriyo oo akhlaaqdiisa uu daahiriyo oo iimaankiisa uu daahiriyo oo uu noqdo qof daahir ah kor iyo hoos ka daahir ah laakiin qofku hadduu isku mashquuliyo dhar wacan inuu gashto ama quways wacan inuu gashto hadhow quways wacan inuu quwaysto dhar wacan inuu gashto oo dhinaca caadiga ah ee daahirka iska daahiriyo mawdic nadrat al-khalq baladaha waxa weeye meesha ay dadku ka eegayaan hadii ay hagaajisid meeshu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka eegayo aad hagaajin weydid waa dhibaato aad iyo aad u weyn waxa weeye waa mushkilad cadiim ah macnaha qofkii in uu meesha dadku ka eegayeen inuu hagaajiyo oo qofkii doonaya inuu ku arko hadii aad niyeysan tahay ama aad jeclaato qofkan waa inuu waxan kugu arag oo qofkii ku soo boqda hadii aad jeceshahay qofkan inuu waxan kugu arag aad hagaajinaysid oo aad nuureynaysid ama aad isnadiifinaysid hadii meel wanaagsan lagaaga yeero ama xalfad ama meelahaas oo aad isku hagaajinaysid meelahaas oo dharka ugu wacan iyo sida ugu wacan ay isku diyaarinaysid hadana ay leeysan tahay meeluu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka eegayo meeshii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka eegay ee qalbiga ahayd ee sadriga ahayd aadan hagaajinayn oo aadan ku fakarayn Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu ku eegayo ama markuu meesha ka eego in ay meeshaas qurux badan tahay in ay akhlaaq ka buuxdo iimaan inay ka buuxaan inuu diin ka buuxo in macnaha nuur xaq uu ka buuxo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo sida ku eego hadhowtana uu ku gorto Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaad tahay qof hagaajiyay meeshii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka eegay taas ayaa muhiimad weeye waxa weeye qofku waa inuu taagartaa oo uu taa isku hagaajiya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu weyneeya oo inna Allaha la yanduru Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma eego suwarikum wa ajsamikum sida u eegtihiin iyo jirkiina Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma eego laakiin wuxuu eega fi qulubikum qalbiyadiina ayuu eega marka meeshu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka eegayo hagaaji meeshu Ilaahay subhanahu wa ta'ala daalacanayo hagaaji oo nuur iyo diin iyo makaarimul akhlaaq iyo iimaan ku beer meeshay dadku ka eegayaan oo kaliya hagaajin laakiin hadii aad meesha dadku ka eegayaan oo aad hagaajisid Ilaahay subhanahu wa ta'ala cadiimka ahana meeshu ka eegay aadan hagaajin waxa weeye waa iimaan yari iyo mahalaka caadiya weeye waxa yeelay dad fara badan baa arkaysa way soo labisanayaan dadka u iimanayaan waxay diidayaan dadkaas inay waxan ku arag ayay diidayaan haddana meeshii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka eegayay inay hagaajin waxa laga yaabaa inay salaadii soo tukan inay quraan arkin in ay kalaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay akhriyaan in ay ugu dambeysay ka rabadaan in ay safxad u akhriyaan in ay bugbug kaliya ugu dambeysay inaynu quraanka Ilaahay wax ay ka akhriyaan garanayn haddana waa wixii loo abuuray la yacrifuun kitaabkii xaafadu yaala guryuhu u yaala haddana la yaqra'uun hadhihi mushkila cadiima wallah hawaye mushkilad aad iyo aad u weyn waxaan isku daarmanaa marka koowaad in Ilaahay subhanahu wa ta'ala meeshu ka eegayo aad ka hagaajisid waxa weeye waa ceebta kale waa ceebta amaanta aynu ku bilaabano aynu leenahay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma eego jasadkiina iyo sida u eegtiin laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu eega fi qulubikum qalbiyadiina markaana ceebta koowaad ee dadku leeyihiin waxa weeye waxay hagaajiyaan dadku meesha ay ka eegayaan
ma hagaajiyaan meesha ilaahay subxaanahu watacaala uu ka eegayo. laakiin ceebta haddii aad isku ogaato waa inaad ceebtaa meesha ka saartaa oo waa inaad hagaajisaa meeshuu ilaahay subxaanahu watacaala kaa eegayo. awalan khasab wey dadka markaa u baxaysid maryaha aa leedahay guryahay ku yeelaan, maryaha gashanaysid guryahay ku yeelaan, khasab waad gashanaysaa ama ishagaaji ama ishagaajin adigii ilaahay waa wax caadifiyan, waa wax ilaahay subxaanahu watacaala kugu beeray oo kugu abuuray inaad ishagaajisid, inaad quweysatid, inaad macnaha isnuuradaysid, inaad cadar marsid, inaad maryo wanaagsan xidhatid. ilaahay baa kugu abuuray, waxaan way kugu abuuran tahay. uma baahnid macnaha niyeysi iyo inaa ilaahay subxaanahu watacaala uga tagtid qalbigii inaad hagaajin, uma baahnid. waa wax ilaahay subxaanahu watacaala kuu fuudeeyey, adigaas ka kacayo ishagaajinaya. markaan waxaan isku dardaarmanaa ceebtaa in laga fogaado. xikmadaheenii aynu ku bilaawi jirnay insha allahu tacaala haddii aan ku bilaabo bacdul caarifiin dadkii ilaahay subxaanahu watacaala yaqaanay, waxaa kala jira alcaarif walmuxib ayaa kala jira. qof caarif ah iyo qof wax jecel ayaa kala jira. qofna ilaahay subxaanahu watacaala wuu jecel yahay, waa darajo, waa darajooyinka ugu waaweyn darajooyinkan alxub walcaarif. laakiin alxubbu jacaylka ilaahay subxaanahu watacaala markuu in badan sii jiro oo qofkii ilaahay subxaanahu watacaala uu jeclaanayo oo ilaahay jeclaaday oo daacadii iyo wanaaggii uu ku dadaalo, darajada uu ka gudbaa, caarif ayuu noqdaa. waxaa la dhahaa alxubbu qofka wax jecel daraaddii wuu ooyaa qofkaasu, baryadana wuu badiyaa. laakiin qofka caarifka laa yabkii, camaluhu sukuut. qofka caarifka ee ilaahay subxaanahu watacaala yaqaana ee darajatul xubbi dhaafay, isagu wuu aamusaa, sifaadkiisu waa aamusnaan. markaa nimankan dadkan caarifiinta sifooyinkoodu waxa weeye way aamusan yihiin. macnaha qofku dee markuu cibaadada sameynayo, qur-aanka akhrinayo, yabkii hadduu ooyo iyo kuwaas macnaha laga sheekeen waayo. laakiinse fi xaaladda uu taagan yahay qofka caarifka maxaa yeele waa xaalad aamusnaana. sababtoo ah waxa weeye ninkan xabiibka ah ee ilaahay subxaanahu watacaala jecel, ilaahay buu jecel yahay oo ilaahay buu doonayaa inuu helo, oo ilaahay buu doonayaa qalbadiisa inuu ka buuxiyo, oo wuxuu doonayaa ilaahay subxaanahu watacaala in macnaha uu jacaylkiisa weyn gaadho, oo ilaahay buu barayaa. laakiin qofkan ma garanaysaa caarifka waxba ismashquulin maayo oo ma garanaysaa isqaaqaadi maayo. isagu waxa weeye waa sukuut. sababtaa ilaahay buu garanayaa, ilaahay meesha laga soo gelayo garanayaa, ilaahay sida loo caabudayo garanayaa, ilaahay sida wax loo weydiisanayo garanayaa, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu garanayaa sida xiliyada wax la weydiisto, ilaahay wuxuu garanayaa qofka sidaas ah siduu wax u siiyo. macnaha shay kasta wuu garanayaa. markaan isma waalaya, halkaasuu iska fadhiyaa, wuu iska cibaadaysanayaa, ilaahay subxaanahu watacaala buu iska cibaadaysanayaa, wuu iska garanayaa. haddeer tusaale ahaan waa laba qof oo guri bay degeen. guri markay degeen, ninkan uu gurigiisa weligii buu garanayay, isbawaali maayo, wuu garanayay. wuxuu sameynayaa suuquu iska aadayaa, gaari buu iska soo raacayaa, ama wuu soo lugeynayaa. si isagoo aamusan buu macnaha xaafadiis ka imanayaa. macnaha qofna weydii maayo xaafadda iyo waxa ku wareeri maayo. laakiin ka xaafadda aan garanayn muxuu sameynayaa? maanta dhan buu qof weydiinayaa, inuu helo rabaa, halkan uu marayaa, dhagdhag saasuu macnaha u boodboodayaa. marbuu qofuu weydiinayaa, teleefon buu garaacayaa, saasuu doonayaa inuu guriga ogaado meeluu ku yaalay. sababtaa ma garanayo. laakiin iskan caarifka waa saas oo kale. qofka ilaahay subxaanahu watacaala ka gaadhay darajo weyn ee ilaahay garanayana waa sidaas. isma waalwaalo, masaajidku iska aadaya aayar, wuu iska soo cibaadaysanayaa, ilaahay buu iska cibaadaysanayaa, wuu barayayaa. ilaahay subxaanahu watacaala qofku xidhan buu noqonayaa. hadduu wax u baahdo xiliyada ilaahay subxaanahu watacaala wax la weydiisto ayuu weydiisanayaa, wuu ku soo celcelinayaa. noloshiisu waa qaabkaas, sidii qof garanayaba ayuu u dhaqmayaa. almuhim dadka caarifiinta ah waxay dhaheen waxaan jeclahay an yakuuna lii fi kulli shay kastaba inay ii noqoto niyatun, yacni niyatun saalixa, niyatun saadiqa, niyad wanaagsan shay kastaba. xataa fi akli wa shurbi, xitaa cunideyda iyo cabideyda, wa nawmi wa dukhuuli lkhulaa, iyo hurdadeyda iyo in aan galo suuliga. macnaha waxyaabahan mustaxabka ee aan cibaadada ahayn, ilaahay subxaanahu watacaala cibaad ahaan uuna usoo dejin oo qofkii macnaha aan la amrin, haddana
wuxuu ku leeyahay ninkaas waxaan doonayaa in ajar iyo fadli la iga siiyo taas sidii ajar iyo fadli la iga siinayay salaada iyo xajka iyo soonka iyo quraan akhriska iyo waxyaalaha wanaagsan sabab iyaduna waa darajo sare wuxuu ku leeyahay macnaha haddaynu si sharxno akli wa shurbi macnaha markaan wax cunayo in aan u niyeysto in cuntadan ilaahay subxaanahu watacaala ma garanaysaa isiiyey aan awood ku yeesho si aan u cibaadaysto oo ay cuntadan ii kaalmayso awooddaasoo aan ku cibaadaysto qofka muxuu ku cibaadaysanayaa awood macnaha qur-aanka muxuu ku akhrinayaa awood samaha markaan wuxuu ku leeyahay waxaan doonayaa inaan ka faa'iido awooddaasoo aan ilaahay subxaanahu watacaala ku baryo aan ku cibaadaysto aan dariiqa ilaahay subxaanahu watacaala ku maro ama inaan kaga badbaado baryada dadka oo baryada waa shay xaaraan ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka xaaraantinimeeyey qofka wax haysta iyo qofka awooda soo maaha qofka awooda baryada uu kusoo celiya waxaas waa ka xaaraan markaana taas inaan ku dhaco ayaa laga yaabaaye cuntadan iyo waxanba waxaan u niyeysanayaa inaan waxyaalaha xunxun ka tago marka qofku uu jihaadka markuu galo inuu u cuno macnaha jihaadka inuu cuntada cuno si uu u jihaado uu awood yeesho khaas ahaan xitaa dadka sooman jihaad hadduu qofkiiyo jihaadaya hadduu soontii ay usoo gasho maxaa u banaan inuu soontaa magaranaysaa wax iska cuno sidii uu u jihaado maxaa yeele qofkii soontii kuma ciyaarayo ma jebinayo maadaama ay ahayd qofka hadduu samo maalintaas waxaa fiican sidii nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu maalinta maadaama uu soomay xitaa hadday ka jabto ama uu iska jabiyo inuu soo qaleeyo maxaa yeele nebiga sala allahu calayhi wasalam wax kastaba oo yar wuu daa'imi jiray inuu soo qaleeyo macnaha isagoo ka eegaya in maalintaas uu soomay oo macnaha uu ku doonayo nebiga sala allahu calayhi wasalam laakiinse waxa weeye waa shay ku banaan haddaad soo qalaysid iyo haddii kaleba almuhim macnaha haddana waxay ahayd macnaha shay nebiga sala allahu calayhi wasalam dariiqiisii iyo naftiisii macnaha xoogaa yara khilaafasa haddana waxay kuu tahay cunitaanka cunaysid iyo cabitaanka cabaysid markaa jihaad ku jirto awood bay kuu tahay waxaad u cabasaana liajli an tujaahida fi sabiili illah subxaanahu watacaala bidariiqatin raa'ica jiddan qawiya in aad ilaahay subxaanahu watacaala daraadii u jihaadid dariiqo aada iyo aada u weyn oo aad iska celisid dadka macnaha oo aad iska celisid oo si weyn aada uga soo baxdid meesha oo awood aa u isticmaashid ayaa cuntadan u cuntay markaan wuxuu ku leeyahay cuntadaas aan cunayo iyo shay kastaba aan cunayo xitaa waxyaalaha caadiga waxaan jeclahay in ilaahay subxaanahu watacaala abaalmarin weyn iga siiyo oo ajar ii noqda xitaa hurdadeeda iyo suuliga aan galayo hurdadu waxa weeye qofku inuu istareex u nasto siduu u cibaadaysto ama shay khayriya uu u sameeyo qofkii hadduu u niyeysto ajar buu ka helayaa laakiin haddii aadan niyeysan oo aad tiraahdo caajis baa sakay haye iyo daal waan iska seexanayaa waxa weeye dawa hurdo adugu kuu banaano aday ku jirtaa fadli iyo ajartoona ka heli maysid waxa weeye qof raaxaysanaya ayaa taha markaan laakiin haddii aad u seexatay inaad awood ku yeelatid daacada iyo wanaagga aad sameynayso oo weliba dee hurdadan ay macnaha aada caajistay oo daashay oo magaranaya ficil wanaagsan aad sameynaysay oo haddana aad doonaysid inaad ficilka wanaagsan saa ugu soo kacdo xoogaa u nasto taa liajliha khayr baa ka helaysaa markaana taas waxa weeye waa xikmadeena iyo faa'iidadeena wey waxa weeye cuyuuba nafsi waxaan kusoo jirnay naftu ceebaha ay leedahay tii koowaad waxay ahayd haddeer casharka aynu ku bilownay inaad hagaajisid meesha ilaahay subxaanahu watacaala uu ka eegayo laakiin oo keliya inaadan hagaajin meesha ay mujtamacu iyo bulshadu ay dadku ka eegayaan min cuyuubi nafsi waxaa ka mid ah futuur adaaca daacada iyo cibaadada in magaranaysa laga caajiso alcibaada wadaaca qofku salaada tukanayo qur-aanku akhrisanayo iyo waxyaabahaas inuu ka caajiso oo dad baa aragteen waxay leeyihiin anigu qur-aanka waanu bilownay maalmihii hore waanu bilownay hadhowtana waanu ka caajisnay maxaa sameynaa markaana waxa weeye waa ceeb ay naftu leedahay ogow marka hore waxaan inay ceeb tahay ogow marka hore ficilka markaa sameynaysid waxyaabaha hore kuu imanaya waa inaa ogaataa cilmigu wuxuu ku fiican yahay qofka cilmiga barta faa'iidooyinkuu leeyahay markuu hawl sameynayo inuu qabto waxyaalaha hawsha cawaaqibta ku ah ee ka hor imanaya ee kaa xanimaya shayga inaad gaadhid haddaa cilmi leedahay oo qof cilmi barta aad tahay waad fahmaysaa oo waa garanaysaa
markaana waa inaad ku xisaabtantaa mar waliba waxaan inay ka hor imanayaan sida u daaweyso. laakiin haddii aadan ku xisaabtamin oo aad is leedahay si raaxa leh baad qur-aanka isaga akhrinaysaa, si raaxa leh ayaa cibaadada isaga wadaysaa, taasu waxa weeye adiga hadhow waxay kuu noqonaysaa shay macnaha mucjisa ama shay kaa hor yimaada. markaa aragtid shay kaa hor yimaada adigu waxaad noqonaysaa qof aan difaaci karin ayaa noqonaysaa. maxaa yeelay waxaan difaac waxa la dhaho oo qofku doonayo inuu waxan difaaco waxa weeye markuu uu bilaabo ayuu waxan dhacaya tusaale ahaan qofku wuxuu ku fikirayaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xuso oo cibaadaysto oo daacada badiyo. markuu ku fikiray muxuu ku fikiray in caajis hadhow uu ka hor imanayo. caajiska hadhow aad ku fikirtay inuu ka hor imanayo ka hor intuu ka hor iman ayaa la sii dagaalamaysaa oo waa isdifaacaysaa oo waxaad dhahaysaa markay waxaas isugu hor yimaadaan sidaasaan sameynaya. waxaad go-aansatay markay waxaas ka hor yimaadaan ayaa waxay tahay difaac. hal deer ayaa difaacii sii waday. marka waxaa isku bilaabaysaa daacadii inaad samaysid iyo inaad difaacaagii bilowdid siduu hadhow markuu kaaga hor yimaado aad adigoo difaacaagii awoodaystay oo caajis markaad dareentid aadan aqbalayn. maxaa yeele qoftay soo diyaariya baa tahay soo maha. markaana almuhim waxa weeye waa inaad ku fikirtaa waxa ka hor imanaya hadhow markaa cibaadaysanayso. futuur annafsi futuur daaca waxa weeye cibaadada waxyaalaha qofku uu ka caajisayo ayay ka mid tahay cuyuubta nafsa. marka maxaad sameynaysaa waxyaalaha aad sameynaysid kow waxa weeye marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala bari oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u cibaadayso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaalmayso oo ogow ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu shaygan daacada uu ma garanaysaa uu ku waafajin karo. kow ilaahay subxaanahu wa tacaala kaalmayso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma garanaysaa bari oo ducayso oo ilaahay waxaa ka baridaa in daacada uu macaankeeda ku dhadhansiiyo. saas oo kale xasan albasri nin la dhihi jiray oo sheekh caalimo weyn ah ayaa nin baa u yimi wuxuu yidhi niyow salaatuleyl ma tukadee maxaan sameeyaa. wuxuu yidhi caasinimada a ilaahay subxaanahu wa tacaala caasinaysid aroortii ayaa waxay kuu diiday habeenkii inaad soo kacdo. markaana aroortii ilaahay adeec si habeenkii aa usoo kacdo sidii habeenkii usoo kacdo. maxaa yeelay dunuubta waxay kuu diidaysaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisii aad fuliso ama kusii taagnaato. waxyaalaha kale ee ka mid a waxaa weeye waa ladatu daaca inaad heshid daacada macaankeeda inaad heshid. daacada macaankeeda iyo macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad dariiqiisa raacdid ama qur-aanka inaad akhrisid ama salaada inaad tukatid macaanka ay leedahay haddii aad heshid lagama yaabo inaad caajistid. caajis laa yuujad fi hada. caajis macnaha ma imanayo. caajis weligiibuuna ku imanayo. marka waxaa ku dadaashaa sidaad ladatu daaca iyo macaanka ay leedahay daacadu si aad u heshid ku dadaal. haddii aad ku dadaashitaa oo hiisigaagu uu noqdo inay daacadu ii macaanaato ayaan rabaa hadday hiisigaadu tahay waxa weeye saasaa ku gaadhay ama sidaas haddaa gaadhid ma caajisid weligaa caajisi maysid. markaana waxaad ku niyeysataa in ma garanaysaa aad daacada ay ku macaanaato taa ku dadaal. waxaa kaloo iska ilaalinaysaa shtuska iyo riyaaga iyo waxyaalahaas ayaa iska ilaalinaysaa iyo faanka. afaman suyina lahu suwa camalihi faraahu xasanan iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yidhi kii ma garanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkiisii uu wanaajiyey uu u qurqurxiyey haddana uu arkay camalkiisii uu u qurqurxiyey hadhowtana uu mooday camalkiisi inuu wanaagsan yahay. waxaa soo gelaya ka camalkiisa ku faana oo kale. maxaa yeele ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkan kuu fuudeeyey inaad ku fahamtid oo aad tiraahid anigu saasaan ahay waxa weeye wax adiga ku yaala maha waa wax ceeb adiga ku ah. markaana almuhim waxaan kusoo koobanaa in daacada ay ku macaanaato. sidaas oo kale waxaa laga sheegaa nimankii qiyaamuleylka tukan jiray ayaa wuxuu yidhi anigu 20 sano ayaan salaatuleyl tukanayay 10 sano waan isku khasbeeyey 10 sanana waa ku raaxaysanayay ee kale 10 sano oo dhan buu ku leeyahay salaatuleyl ayaan isku khasbeeyey waan soo kacay huu iga tagaa habeenuu iga tagaa waan tukadaa habeenuu iga tagaa
waan tukadaa, habeenuu iga tagaa, habeenaan tukadaa, saasaan ku wadi, ku dadaalay, toosii kacay, saasaan ku wadi 10kii sano hore. 10kii sano labaadna waan ku raaxaysanayay, habeen kasta waan soo kacaa, raaxo ii noqdaa, macaan buu ii noqdaa, waxaan dareemaa faa'iidadiisii, wixiisii oo dhan waan qaataa. markaana almuhim inaad ku dadaashid bahashan ama ilaahay subxaanahu watacaala in la caabudo iyo cibaadadan waxay leedahay macaan bay leedahay. qofkii macaankeeda dhamiya siduu cibaadadan uga tago way adag tahay, aad iyo aad ayay uga adag tahay. adugu bal dadka xumaanta hadeer ku jira bal isku day markaa la sheekaysid aad ku tiraadin haddii aad xumaanta ka tagtid oo aad ilaahay subxaanahu watacaala u toobad keentid oo aad salaad tukatid oo aad quraanka akhrisid oo waxaan isaga soo kacdid ka war waxay doonaan ha ahaadaan, ama qaad ha ahaado, ama heeso iyo waxyaalaha ha ahaado, ama xumaan kale ha ahaado. muxuu ku dhahayaa anaa laa aqdir? macnaha way ku adag tahay, aad iyo aad ayay ugu adag tahay inuu ka soo tago waxan, sababtoo ah naftan macaankii waxan ee lahayd ayaa qalbiga galay oo wadnaha ka galay oo laabta ka galay oo jirkiisa ka galay, oo hadduu hees maqlo uu ku raaxaysanaya, oo hadduu mijin qaada uu helo kaannahu wajada dunya wama fiiha, sidii qof adduunyadii oo dhan helay. maxaa yeelay marqaankii ayuu gaadhay oo waxan wuu la qabsaday macaankeediina wuu helay. sidaas oo kale weeye qofka daacada iyo wanaagga la qabsada, qofkaas macnaha ma awoodo inuu daacada iyo wanaagga iyo cibaadada uu iska daayo ama uu ka caajiso, ma awoodo, sababtoo ah wuxuu gaadhay macaankii ugu dambeeyey, heerarkii ugu sarsaraysay ayuu gaadhay. wax kale ma garanayo, laa yacrif ila hada aw laa yatadakar ila hada, maba soo xasuusanayo. markaana almuhim waxaa weeye intaas ayaynu isku waanineynaa ama isku sheeganaa insha allahu tacaala cuyubaha nafta inaan iska hagaajino. ilaahay subxaanahu watacaala nafteena hagaajiyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.